koob iyo toddobaatanaad ee golaha guurtida Somaliland oo ay soo ka soo xaadireen 55 xildhibaan ayaa lagaga arrinsanayay ansixinta ajandahaasi. Xildhibaanada golaha guurtida Somaliland qaybo kamid ah ayaa dooda ka keenay ansixinta ajandahaasi. Arrimaha taagan xog waranka gudiyada waxaan soo jeedin lahaa si aynu arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda uga galno. halka labada wasiir loogu dambeysay iyaga inaan soo hormarino wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibadda maadaama ajanda ay xagga hore kaga soo jiraan iyagu qodobka toddobaad oo dhaqaalaha ka hadlaya waxa uu sheegayaa in wax ku wacyigelinta cunista cuntada ka soo baxda dalka iyo wax soo saarka oo la kordhiyo taan waxaan ku kordhin lahaa iyo ka wacyigelinta qodob fikrad labaad baan halkaas soo gelin lahaa ka wacyigelinta cunista qaadka waxaan soo jeedinayaa in ajandaheennan maanta lagu daro xeeroosaadkii labada gole ay ku wada shaqayn lahaayeen waxaan ka hadlayaa halkan waxa ku yaala curinta xeerka dhaqanka ayaa halkan ku taala hoose maadaama uu la doonayo guurtidu ay awood u leedahay ama dastuurku siiyay qodobka 16aad diinta dhaqanka iyo nabadgelyada waxaan soo jeedin lahaa maadaama xeerarkii hore aynu nagu ku ansixinay tuutarka ay ku yihiin oo la ansixiyay marka waxaan soo jeedin lahaa maadaama ku horeba sida u cambusan yihiin in isna laga saaro meesha sidoo kale xildhibaanada golaha guurtida Somaliland ee dooda ka keenay kalfadhigani ayaa dalbaday in wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland uu hor yimaado golaha guurtida Somaliland waxaana ugu baaqeen wasiirku inuu ka hortag weyn ka sameeyo cudurka coronavirus-ka ee ka dilaacay wadanka Shiinaha waxaan oran lahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka loo yeero fayraskan la sheegaya bal ka hortagiisa iyo difaacidiisana isaga iyo sidii aan uga abaabul lahayna hal lagu soo daran lahaa waxa kale ku soo kordhinayaa in lagu daro wasiirka caafimaadka oo xaaladda waayo hargab shimbireed ayaa dunidii ka dilaacay hargab Chinese waa hargab Chinese aad u dilaaya marka bal inaguna sida ay nooga waa Ethiopia soo gaaray baa la leeyahay warbaahintu aad iyo aad u qaada dhigaysa bal inagana wasiirka caafimaadka in loo yeero in bilicda magaalada oo runtii isku dhex daadsan in iyada laftigeeda qodobka lagu daro oo bilicda magaalada laga hadlo wasiirka caafimaadka in isagana lagu daro wasiirada intaasi ka bacdi gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtida Somaliland Saciid Jaamac Cali ayaa dul istaagay qodobadii ay cabashada ka keeneen xildhibaanada golaha guurtida Somaliland waxa la soo jeediyay oo xildhibaan soo jeediyeen in la soo horumariyo yeerista wasaaradda labada wasaaradood hore oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda ma xuma oo de wasla halkii hadii aynu soo horumarino iyo marka la gudagalo waxyaabaha markaas muhiimka oo soo baxa in loo yeero wax laga weydiiyo laakiin marka aynu u yeerno de wasiirku intuu warbixin halka ka jeediyo iska baxaya qodobka labaad waxa weeyaan in gudiyada golaha gudooshadada golaha warbixin laga dhageysto waa waltaykan weeye way fiican tahay qodobkaas waa ku dareena qodobka saddexaad waxa weeyaan wasiirka caafimaadka yeerisa wasiirka caafimaadka waa iyaduna waa muhiim weeyaan maadaama xaalado ay jiraan cusub oo hadda dalka ku adduunka ku cusub bal wixii ka hortaga iyo wixii u diyaar garoowa oo ay wasaaraddu ka leedahay siyaasad ahaan in uu golaha ka horjeediyo qodobka lixaad faqradiisa lixaad ku dhaqanka anshaxa iyo dhaqanka suuban way dhan tahay ugu dambeyntiina gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa cod aqlabiyada xildhibaanada uga qaaday ansixinta kalfadhigii 17aad ee golaha guurtida Somaliland intiina lagu soo daro xusuusan waxa ugu muhiimsan waxa weeye maanta wasiirka caafimaadku muxuu inoogu talagalay ilaalinteed cudurka xuna adduunka hadda ka dilaacay labada qole jaarka Soomaalida ay bal labadiiba uu ku jira Ethiopia waa soo galay Kenya waa soo galay dadkuna way soo socdaan saynuhu aad buu arinta xanuunka aad buu adduunka uga la dagaalamay way ku amaanan aanu cadayno shaniyo konton baa ku joogtaan inta isbedelka marka lagu daro inta ogolay gacmaan taagaada saddex iyo konton waa ogolaad midda waa ka aamusay aniguna halkaygaan iska aamusnahay taas waa ansax ku yihi Maxamed Jookar telefishinka caalamiga Home Cable TV Hargeysa